madaxweynaha Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer kadib safar bariyihii ugu dambeeyay oo ku gaalabixinayay gobolada Sool iyo Saraar. Madaxweynaha Somaliland ayaa maanta gelinkii dambe si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Burco iyo soo dhaweynta madaxweynaha ay ka qayb qaateen shaqaalaha dawladda iyo iskuulada dugsiyada sare ee magaalada Burco. madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo ayaa markii uu soo gaaray magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka qalabka sida. intaasi kadibna madaxweynaha waxaa loo soo galbiyay xarunta madaxtooyada ee magaalada Burco. madaxweynuhu markii uu soo gaaray xarunta madaxtooyada ee magaalada Burco ayaa waxa halkaasi warbaahinta kula hadlay afhayeenka madaxtooyada Somaliland mudane Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Faahiye Shamax isagoo ka warbixiyay waxa uu daarnaa safarka madaxweynaha oo maalmihii ugu dambeeyay oo uu safar ku gaalabixinayay gobolada bariga Somaliland ee Sool iyo Saraar. waxaa kaloo isna halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Ibraahim Aadan Qabo oo isaguna madaxweynaha ku soo dhaweeyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaana hadaladoodii ka mid ahaa socdaalka madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland uu ku tagay dhinaca bariga ee dalka. socdaalkaasi runtii wuxuu ahaa mid taariikhi ah oo aad iyo aad muhiim u ah. madaxweynuhu sida aad la socotaan ee warbaahinta laftiinu aad gaarsiiseen ummadda iyo dalka iyo dibadda aad gaarsiiseen. madaxweynuhu wuxuu xalay ku sugnaa magaalada Laascaanood magaalada madaxda gobolka Sool ayuu ku sugnaa. maanta oo dhan waxa uu dhex meerayay madaxweynuhu oo uu kormeerayay hay'adaha dawladda ee ku sugan magaalada madaxda gobolka Sool ee Laascaanood halkaasoo mashaariic badan oo qaarna furayay oo xariga ka jirayay oo wadooyin leh dhismayaal qaarna uu kormeerayay qaarna au binaynayay oo au dhagaxii ugu horreeyay au dhigayay. marka madaxweynuhu shaqo culus ayuu ka soo qabtay magaalada madaxda Laascaanood. waxaad moodaa magaalada madaxda gobolkaasi Sool ee Laascaanood in ay dawladda mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo ay si gaar ah ugu dhalatay gobolkaas Sool ayaad moodaysay marka la eego baaxadda mashaariicda ka hirgashay ee ku kacday malaayiinka dollar. waxa lagu qiyaasay mashaariicda ilaa imka fushay inay tahay ilaa 7 milyan oo dollar ay tahay ayaa lagu qiyaasay oo ay ugu xoog weeyeen mashruuca dhinaca caafimaadka. Axmed Maxamuud Siiraanyo wax fara badan ayuu ku suntayay taariikhda Somaliland. waxay ka mid noqonaysaa guusha gobolada bari ee taariikhii hore u lahaa ama darajo ha noqoto ama furistii ururada siyaasiga ha noqoto ama ha noqoto wax fara badan uu koobsaday ama dhismaha iyo dayactirka dalka hadday tahay wadooyin oo bilaabay isaga la kowsaday hadday tahay dhismayaal qurux badan oo wasaaradaha uu ka sameeyay hadday tahay dhinac kasta markaad ka eegto waxay tanna waliba ku sii khatimaya xantii ahayd gobolada bari lama hayo oo maanta la soo gabagabeeyay. waa madaxweynihii ugu horreeyay taariikhda Soomaaliba ee Laascaanood seexda. waa u taariikh lama hayo madaxweynaashii ka horreeyay Somaliland meeyeen madaxweynaashii Soomaaliyana hore umay samayn ama may seexan. madaxweynaha Somaliland ayaa la filayaa ilaa maalinta Birey inuu ku sugnaado magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Khalid Cabdikariin Xaaji, shabakada caalamiga ee Jarab News, magaalada Burco.